gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo sidoo kale wafdi balaaran oo ka tirsan xisbigaasi ayaa waxay habeennimadii xalay ahayd ay kaga qayb galeen hotelka Kaaf ee magaalada Burco munaasabad balaaran oo mas'uuliyiinta xisbigan ay u sameeyeen taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer inay uga mahadnaqaan sidii baaxad lahayd ugu garab istaageen doorashadii dalka ka dhacday 13 November ee sanadkii hore munaasabadan balaaran ayaa waxa soo camiray kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana horeyntii munaasabadaas hadallo kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbigaasi waxaanay tilmaameen ujeedada munaasabadani madax dhaqameedka dhalinyarada dhammaantiin aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa ajiibitaankaas soo ajiibteen xafladan aadka iyo aadka u qiimaha badan ee uu inoogu mahad celinayo gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan ku taageersanahay gudoomiyaheena Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi nimanka kubishinka ee siiri walayaasha dhammaan sida yihiin in la inaga bedelo oo wax doorasho dambana aanay noo qaban codkii ay bixiseen gobolka Togdheerow mahadnaqleedii ka mahadnaqayo oo ay aniga aad iyo aad idin soo dhaweynayo hadday tahay gobol hadday tahay degmo Togdheer waynu garanaynaa maalmihii halkan maanta ayaabii ka horeysay halkan aynu codka ka wada hadlaynay codkii maanta waynu khasaarin codkaynu waynu ridanay maantana waxaynu isugu dhimi mahadnaq waxa weeye Somaliland in badan buu laydinka warramay arrimeedana looga warramay halgan dheer baynu gelaynaa oo ina sugaya markii horena halganka ka badhbaahaydeen iminkana waxaan qabaa inaad noqon doontaan kuwa ugu sarreeya halgankaas ina sugaya haddaad tihiin reer Burco inaan helin xukuumaddii aynu sugaynay iyo dawladnimadii aynu sugaynay ma inaan helin kuwii dadka maskaxda wax ka qaba ee kumaankulka ah ku xariisa guryaha dawayn lahaa ilaa ujeeddada aynu gaadhno oo aynu dawladnimada gaadhno oo aynu dhalinno miisaaniyadda qaranka gobollada ay u siman yihiin markaynu taagaanay wadani nasan doona ugu dambeyntii waxa hadaladii munaasabadaas laga soo jeedinayay soo afmeeray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu shacabka kala duwan ee gobolka Togdheer xaafad degmahan iyo gobol ahaanba uga mahadnaqay sidii baaxad lahayd ugu garab istaageen doorashadii dalka ka dhacday waxaanu u soconnaa oo safarka iyagu ku saabsan yahay ama ujeedada safarka iyagu tahay hal ujeedo oo kaliya halka ujeedo waxa weeye inaannu idiin mahadnaqno oo aannu mahadnaqno dhammaan shacbiga gobolka Togdheer waxaannu idinku mahadnaqaynaa qof waxaannu idinku mahadnaqaynaa xaafad reer Togdheer waxaannu idinku mahadnaqaynaa tuulo waxaannu dhammaantiin baannu mahadnaqaynaa qof kasta oo taageero ah oo xisbiga wadani cod siiyey meeshuu doona baa ka jooga gobolka Togdheer aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa anigoo idin faaninaynin runtii waa ahaydeen gobollada way noo wada dadaaleen laakiin gobolkii ugu wacdaraha badnaa baa ahaydeen gobolkii ugu xamaasadda badnaa baa ahaydeen gobolkii kulmiyey baqdin geliyey baa ahaydeen وخالد بكيلي فوقان رقا حرصة ستار TV برعو.